Xaflad si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey oo lagu caleemo-saarayay nabadoonka guud ee beesha Gurgarte, Ismaaciil Xaaji Axmedey oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed kuwooda ugu faca weyn ayaa ka dhacday Alifo oo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay 6 deb ee u kala baxaan beesha Gurgarte, beeraley, oday dhaqameedyo, waxgarad, siyaasiyiin, dhalinyaro, qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada ay degto beesha Gurgarte sida Baqdaad, Buuri, Buuri Weyne, Buuri Yare, Gaalgube oo intuba xad la leh degmada Afgooye iyo degmada Balcad oo ka kala tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana goobta xafladda lagu soo bandhigay ciyaaro hidaha dhaqanka, astaanta beesha, qoobka ciyaar, gabayo, geeraaro lagu baraarujinayo nabadoonka beesha Gurgarte. Marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan ayaa dhammaantood wada qiray inay heleen nabadoon ay ku aayi doonaan, waxa ayna hoosta ka xariiqeen inuu ku suntan yahay nabadoon Ismaaciil Xaaji Axmedey wanaag, xilkasnimo, daacadnimo, howlkarnimo. Beesha Gurgarte oo taariikh fog ku leh geyiga Soomaaliyeed ayaa haatan yeelanaysa nabadoon guud, kaas oo ka talin doona masiirka beesha, isagoona noqonaya nabadoon ka haysta taageero fara badan beesha Gurgarte. Isku soo wada duuboo xafladan ayaa ku soo dhammaatay guul, ismarxabeen iyo isku duubni ay ku dheehan tahay kalgacayl.